kulan lagu soo gootinayay goolhayihii kooxda dowladda hoose ee Burco Saciid Okaacha ayaa galabta ka qabsoomay garoonka Olympic ee magaalada Burco. Ciyaartooygan ayaa ka mid ahaa safkii kooxda dowladda hoose ka caawiyay inay ku guuleystaan tartankii horyaalka heerka koowaad ee gobolka Togdheer. sidoo kale waxa uu kooxda kala qayb galay koobkii horyaalada ee Somaliland Champions. ugu horreyna waxa halkaasi ka hadlay tababaraha kooxda Cabdicasiis Xagar iyo qaybo ka mid ah ciyaartooyga kooxda oo dhammaantood si weyn ugu bogaadiyay ciyaartooygan waxqabadkiisii naqabadka lahaa ee uu ka sameeyay garoomada muddadii uu xidhnaa funaanada kooxda. العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ugu horreyn Ilaahay baa mahadle nagu simay maanta oo ka duwan maalmihii kale ee ayaamaha oo aad iyo aad qiimo nagu leh oo maalin ay tahay 7 bishii koowaad 2023 waa maalin aan sugootinayno saaxiibkayo walaalkayo xirfadyahankii ciyaartooyigii Saciid Axmed Xasan oo u safara insha Allah ayaamaha soo socda magaalada Muqdisho runtii waxa weeye inaan yiraahdo safar salaam ama inaan yiraahdo ku sii maca salaameeyna runtii anaga way nagu adag tahay oo ciyaartooy qiimo ku lahaa kooxda dowladda hoose oo ciyaartooy liijan ku noqday 8 bilood oo nala joogay runtii wuxuu ahaa raggii koobkii ay kooxdu ku guuleysatay iyo guurihii kooxdu ay sida fudud ku gaadhay number 1 buu ka ahaa ama kuwii ugu muhiimsanaa ee ka saaciday kooxdu inay horyaalka ku guuleysato kulamo badan guuleysato isaga ka koowaha runtii ma doonayo inaan halkan aan uga mahad celiyo runtii waajib buu qabsaday uu u yimi runtii koobkana raggii naga saaciday buu ahaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leeyahay walaal iyo saaxiiba qulubteeda wad ku weynaan doontaa qulubta kooxda dowladda hoose wad ku weynaan doontaa runtii meeshan waa meel laga jecel yahay noqotay adiguna aad jeceshahay runtii waxaan leeyahay markii koobaad ma noqonaysa ee aad markii suuqay dambeysay laakiin waxay noqonaysaa markii suuqay horeysay oo waxaan marar badan oo dambe insha Allah waad noo iman doontaa kooxdu waad kooxdaadii waa koox aad taariikh ka samaysay waa koox aad ugu leedahay runtii maanta dareenkaygana aad buu ugu duwan yahay dareemada kale waayo macalinkiisii baan ahaa muddo 8 bilood ku dhow ayaanu la dhaqmayay walaalin noqday saaxiibin noqday ciyaartooygayga kuwa ugu muhiimsan oo noqday runtii aad iyo aad baan ugu mahad celinay waxa leeyahay walaal mar labaad iyo mar saddexaadba waan ku jecelahay kooxdan way ku jeceshahay liijan baad ka tahay haliyay baad ka tahay halkan ugu dambeyn waxaan uga mahad celinayaa maamulka kooxda dhammaantoodba ciyaartooydaba sida quruxda badan ay u soo ajiibeen ay walaalkood Saciid ay u garab taagan yihiin una sugootinayaan iyagoo ka xun in uu ka tagayo haddana waxaan leeyahay aad iyo aad baa u mahadsantahay ciyaartooyda dhammaantood maamulka runtii waxaan hal marnaba ilaaweyn aan doonaya halkan uga mahad celiyo gudoomiyaha kooxda Mustafa Axmed Haaro oo ninkan Saciid inuu taariikhda halka ka sameeyo ka dambeeyay runtii oo ilaa Muqdisho oo markii hore ka yimi bishii shanaad naga saaciday kooxda inuu yimaado intaas oo dhanna ka dambeeyay inuu kooxda la joogo oo la qabsado waxaan leeyahay Mustafa Axmed Haaro aad iyo aad baad u mahadsan tahay mar labaad iyo saddexaadba waxaan marnaba ilaaweyn maayarka magaalada waxaan leeyahay aad iyo aad baad adiguna ugu mahadsan tahay shaqada wanaagsan ee aan qabanay adiga ka dambeeya waanad ku amaanan tahay adiga golahaaga deegaanka dhamaantoodba waxaan leeyahay aad iyo aad baad idinku mar labaad iyo saddexaad u mahadsantihiin waxaan halkan fariin uga sidaa taageerayaasha kooxda intii soo gaari weeday inay timaado munaasabaddan oo in badan oo kooxda ka tirsan oo taageerayaasheeda ay yiraahdeen iyaguna safar salaama naga gaarsiinta intaana waxa la isdiido ilaa taageerayaasha kooxda ayaa ku soo maca salaameynaya taasaa muujinaysa inaad tahay number 1 ka kooxda halyeeyga kooxda aad tahay aad iyo aadna waad mahadsantiin dhamaantiinba bahdiinan arda idinkuna aad bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkan maanta sagootin ugu sameynaa xaflad ah saaxiibkay ambahal bowlaha kooxda Saciid Okaacha oo runtii kooxda guulo badan la soo gaaray koob muhiim ah kula guuleystay ay maanta kooxda dowladda hoose halkan ugu dhigaysaa xaflad sagootina Saciid kooxda dowladda hoose waxay noqotay gurigiisii labaad runtii waqti badan iyo guulo badan iyo farxad badan oo la soo qaatay Saciid runtii ma ilaabi doono insha Allah nagamanu tagine insha Allah uu noo soo noqon doonaa Saciid waxaan leeyahay
burco waa gobolkaagii labaad kooxda dowladda hoosena waa gurigaagii labaad insha allah waad noo soo noqon doontaa runtii aad iyo aad baan kugu mahadnaqayaa sida weyn ee wanaagsan ee sharafta iyo karaamada leh ee kooxda guulaha muhiimka ula soo gaadhay runtii aad dhiirigelinta la barbar taagnayd aad ayaan saaxiibka ugu mahadnaqayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa maxamed abil cabdi jesto waxaan maanta ciyaarta sagootina u qabanay walaalkay xilligii siciid oo ka mid ahaa ciyaartooyda ugu muhiimsan ee kooxda kubadda cagta dowladda hoose degmada burco siciid inteero kooban oo kooxda ku jiray wuxuu sameeyey taariikh siciid waxaan uga mahad celinayaa muddada kooban siduu ula dhaqmay dhammaan maamulka kooxda ciyaartooyda iyo taageerayaasha iyo qof kasta oo kubadda cagta ku jira ama ka tirsan walaalkayo sagootinta maanta halkan ugu sameynayna ma aha sagootin uu kooxda saaka ka tegayo insha allah hadda alla ka dhig kooxda waa soo laaban doonaa isagoo tartanada dambe ee kooxda ciyaarsana kala qayb geli doona walaalkan waxaan leenahay ilaahay ku nabadgeliyo safarkaaga safar khayr qaba ilaahay kaaga dhigo walaalkan wuxuu aadayaa magaalada muqdisho reer muqdishona insha allah waxaan rajaynaynaa inay iyaguna sidaas lagu soo dhaweeyaan reer muqdishona uu noogu salaamo السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعد عبد العزيز فهذا كم قاعد لوسيو. هل وحن سفر خير قبل ورجينيا معلك السيد أحمد حسن وأنا لي دلك يجويو نبغى كتب والله هذا الكيجا محن درين كيجا مقياس كرو وايو معلك يجي توبرك هذا النقطة معلك يجي دير جلينك هذا النقطة هذا ما أنت هل كان كم عسلامين يا وأنا لي سفر خير قبل وأنا نقول ده سارق جنود بيجي أنا نقول ده سارق جنود ري إن شاء الله نرجعني مرول بنينا نسرقنا أنت هاي مال السبتية ومال وحوي آدي آد مال نووي وحوي ومال وحوي حتى على المركز كأكتر ومال أذك وايو سعيد أحمد حسن ciyaartooy weyn oo muhiim nagu ahaa oo in muddo aan ka tirsanaa kooxda dowladda hoose ayaa naga ambabaxaya wallahi waa maalin waxa weeye waa jaw aad u duwan weeye aad bay u adagtay siciid oo kale inaad maca salaamayso aad tiraahdo safar salaam inaad tiraahdo aad bay u adag tahay waxa weeye waa saaxiib aad u qiimo badan weeye waa shakhsi ay dadnimadiisu yar tahay in dadkiisoo kale la helo waxaan leeyahay saaxiib nabadgal baan ku leeyahay saaxiib waxaan noo rajaynayaa waqtiyo badan oo qurux badan oo inta ka duwan wada qaadano haweenku kuma oran karayo nabadgelyo aad bay ugu adag tahay laakiin saaxiib waxaan noo rajaynayaa saaxiib insha Allah in waqtiyo kale oo qurux badan oo halkan ka sii wanaagsan isku nimaadno haween maanta taariikh weyn baad bartan ka samaysay magacaagu markasta muhiim buu noo ahaan doonaa haween shakhsi markasta noo muhiimad ahaan doontaa nabadgal baan ku leeyahay saaxiib بسم الله الرحمن الرحيم وقورن إلى محل هل كان ما توحى سوني إن أكون مع السلامين وكسي سقوتينو سعيد كاشة وأكل هاي كه دولة دوسة وريال قبل كتغير نلاقى هذي وريال كي وريال الذي سمع لنا كلاقي بقلي ومدس ديد بالوضع dhuuxa iyo dhiigaba u shabay kooxda dowladda hoose oo intaaba nala joogay gobolka Togdheer oo noo muujiyay akhlaaq wanaag dabeecad dhaqan wax kastaba oo halkana ka dhigtay hooygiisii Muqdisho oo kale kooxda dowladda hoose ay hooyay aabbo u noqotay oo garabkiisa iyo gaashaankiisa ahayd taasoo ay muujinayso يعني استحقاق كي سبورتينيمو أما ده شخصيتي أي ترجمة سكوب دعكتو إن كل مناها مركي دسو كايدن بيسي لكن واحد رجيني يعني وقتها بدن إن شاء الله نوضع قادم دون سعيد لكن تنوحي تاي مادام ما تبحيو إن كم هذا علينو سيدي قروح بالنايد وكوحدنا ولا رقمي تدال كيسة هرمادك بديسة قروح بدن وصوب برنيجي كل يوم هذا كلمة ديدو أنا لاقي مر لبادي مر صدحات بهم بليو أنا تشعل هاي إنتين كبلا منا وضع قادنو إن عاد بنو وجوهم بليين يكوه دولة دوسة وصدي
maamuuska lahayd ee habdhaqanka wanaagsaneyd ee sharaftii karaamada ku jirtay baa u garab taagnayd intiiba ugu horeeyo gudoomiyaha kooxda Mustafa Axmed Haruun oo kolley dadaal badan ka qaatay inuu halkan imaado oo u horay waqtiyo wixii awoodiisaaba inuu halkan keeno kolley Mustafa aad baan ugu leeyahay shukran kolley dadaalkaagii kooxdana uu ka dhex muuqday gobolkana uu ka dhex muuqday waxaan kaloo aad ugu hambaleynayaa maamulka dowladda hoose maayirka xigeenka hoogayaa dhammaan golaha deegaanka iyo bahaweynta taageerayaasha kooxda dowladda hoose waxaan leeyahay dhammaantiin wax fiican baa muujiseen insha Allah halka ay meel ka sii sareysana waan u rajaynayaa kooxda. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bismillaahi raxmaani raxiim. Ilaahay baa mahad subxaanahu wa tacaala. Maanta waxaan sagootiina saaxiibkay Saciid Axmed Xasan Saciid Kaaja oo u safray magaalada Muqdisho. Runtii maanta waa maalin aad iyo aad u qiimo badan. waa maalin farxadeed. Waxaan sagootiina walaalkay Saciid waxaan leenahay insha Allah waxaan rajaynayaa marar kale badan inaan isku soo noqono. Tani ma aha inaad yani saan nooga tagtay laakiin waxaan rajaynayaa marar kale farbaas isku soo noqono. waxaan leenahay yahay safarkaas safar khayr qaba kaaga dhigo insha Allah. waxaan kooxda dowladda hoose Burco qalbiyadeeda iyo qulubtooda kama baxaysid muddo kooban oo 8 bilood aad joogto waxaan la sameeyay taariikh aad iyo aad u qiimo badan insha Allah. waxaan rajaynayaa inaan taariikho kale badan oo kubadda cagta aan wada sameeyno. kubadda cagtuna xuduud ma laha insha Allah. waxaan rajaynayaa in anaguna halka ku nimaadno adiguna aad marar kale badan oo timaado. waxaan ku leenahay safar khayr qaba insha Allah. khayr baan ku soo rajaynayaa insha Allah. bismillah alxamdulilah ilaahay baa mahad oo dhan iskale. maanta sabtiya 7 January waxaanu munaasabad ciyaarsi wajin oo sameeynaa walaalkay oo saaxiibkay oo ciyaaryahankaygii mid kamid ah legends-kii kooxda dowladda hoose Burco oo muddo kooban ku sameeyay taariikh weyn oo kooxda Saciid Axmed Xasan oo maanta uu safar ugu ambaxay magaalada Muqdisho. safar salaam aan leenahay saaxiibkayo insha Allah si noqon maayo markii ugu dambeysay waa kan mataqaana way maado insha Allah. waxaan rajaynayaa inuu isku soo noqono Saciid aan guulo badan kale insha Allah wada gaarno. mar labaad baan rajaynayaa insha Allah inuu kooxda dib ugu noqdo. taariikhda uu ku sameeyay kooxda kubadda cagta dowladda hoose Burco insha Allah inuu mar labaad furto oo taariikh kale iyo mar kale la sameeyo insha Allah ayaan rajaynayaa. Saciid saaxiib aad baad maasan tahay kulli juhdigii badnaa iyo dadaalkii badnaa ee kooxda kubadda cagta gelisay. runtii waxaad ahayd shakhsiga ugu muhiimsan kooxda dowladda hoose Burco. shakhsi waxaad ahayd mataqaanaa guusha kooxdana mataqaanaa qayb muhiim ku lahaa. aad iyo aad baad saaxiib qaali u mahadsan tahay qalbiyadeeda ku jirta insha Allah. waxaan rajaynayaa insha Allah inaan mataqaanaa aad insha Allah nooli kulante insha Allah mar dambe insha Allah aynu kulanno insha Allah si qurux badan insha Allah guulo badan iyo taariikh kale oo mataqaanaa weyn insha Allah aynu wada gaari doono. aad iyo aad baan saaxiib qaali kugu mahadcelinayaa. safar salaam ku leeyahay insha Allah. safar khayr qaba insha Allah nooli kulante iyo insha Allah inagoo mar dambe maaliyada kooxda dowladda hoose Burco aynu difaacno iyo koob badan insha Allah aynu ku guuleysano duulaha kaliya sidii aad mataqaanaa koobka horeba ugu guuleysanay. dhammaan kooxda dowladda hoose Burco ciyaaryahan iyo maamul iyo dhammaan maamulka dowladda hoose gudoomiye iyo maamulka macalinka kamid yahay ciyaaryahanada dhammaantoodna aad baan ugu mahadcelinayaa. sida qurux badan la mataqaanaa ay soo diyaariyeen kooxda bahda ardaak hebel iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. dhammaantiin waa mahadsantiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. ugu dambeynna waxaa isaguna kooxda uga mahad celiyay munaasabadan ay ku maamuseen goolhaye Saciid oo isagu ahaa ciyaartooyga la sagootinayay. ugu horreyn assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. meeshaan waxaa farxad yahay maanta inay nadigayga dowladda hoose Burco ay sagootinay samayso anigu la soo joogay in badan ugu yaraan 8 bilood aan kula guuleystay horyaalka gobolka Burco gobolka Togdheer. marka kulli ma dhihi doono markii ugu dambeysay meeshaan imaanayo aan soo noqon doono Ilaahay gaarsiiyo. dareenkayga maanta ma soo koobi karo Ilaahay ka gaarsiisan yahay. marka qolada arday Allah aad iyo aad ugu maasan tahay macallimiinta ciyaartooyda maamulka naadiga xalfadan soo abaabulay aad iyo aad dhamaantood ugu maasan yihiin. marnaba qalbigayga ka mid bixin doontaan nabadii ma ilaawi doono.